السلام عليكم كلنتي wanaagsan tan ilaa ay habeenkii xalay ilaa ay saakay Israa'iil barordiiq weyn ayaa ka socota shacabka Israa'iil warbaahintooda iyo sidaas oo kale saraakiisha Israa'iil ayaa dhamaantood maanta wada booynaya cabsi xoogan ayaa ka muuqata habeenkii xalay Iiraan iyo sidaas oo kale Xuutiyiinta ayaa dhowr gantaal ku habsiyay guud ahaanba Israa'iil laga bilaabo waqooyiga iyo sidaas oo kale Tel Aviv kanaalka 13 Israa'iil ay hadda wuxuu qorayaa mas'uuliyiinta ama wasiirada ugu sareeya Israa'iil dhamaantood iyo qoysaskooda in ay galeen godad hoose ee aan ilaa ay hadda aan la aqoon halka ay ku yaalaan taa oo markaasi muujinaysa fashil weyn sida markaasi kanaalka 13 Israa'iil uu sheegayo מוריה אסרף, אנחנו מגיעים אלייך שוב כדי לדבר על הכותרת שאיתה פתחת. כן, אז אנחנו יכולות לספר, דוריה, שמספר שרים בממשלה וגם שרי קבינט כמובן, המשפחות שלהם פונו למקומות מסתור, נכנה זאת כך, חלק למקומות... gabadhan waxay sheegaysaa in madaxda Israa'iil gaar ahaan wasiiradooda kabineetka qaar badan oo kamid ah in ay galeen meel aan la aqoonin ilaa ay haddana ay shacabka Israa'iil iyagana gantaalada Iiraan ay soo tuureen ay markaasi ku habsadeen halka madaxdii oo la doonayay iyaga in markaasi ay shacabka ka soo horeeyaan iyaga iyo qoysaskooda la soo sheegayo in ay markaasi godad hoose ay galaan run ahaantii arrinkan waxa muuqata fashil aad u weyn Israa'iil tan ilaa 7 Oktoobar markii weerarkan uu bilowday waxay ku eedeynaysay madaxda iska caabinta Falastiiniinta ee ku sugan marinka Gaza gaar ahaan ha ugu badnaaday Yaxya Sinwaar ay lahaayeen shacabkiisii ayuu dagaal u horseeday isagana godad hoose ayuu ku jiraa sidaas oo kale tanaalo ayuu ku jiraa cabaayada ayuu xiran yahay maanta tii iyaga ay ku eedeynayeen madaxda iska caabinta Falastiiniinta ay warbaahintooda laf ahaantooda maanta ay sheegayaan oo feerkii Netanyahu wargeysada Israa'iil badankooda waxay leeyihiin kuma sugna gudaha Israa'iil sidaas oo kale labadiisii wajar Ben Gvir iyo sidaas oo kale Stomrage iyo wasiirkiisa gaashaandhiga Katz ayaa qoysaskoodii iyaga waxay galeen meel aan la aqoonin oo dhulka hoose ah halka shacabka Israa'iilna ay ku baaba'ayaan arrinkan oo midaan waa midda ilaa ay saakay warbaahinta Israa'iil ay aad u falanqeynayso runtii Israa'iil burbur aad u weyn ayaa ka muuqda gudaha Tel Aviv dhismayaal aad u xoogan ayaa burburay sidaas oo kale Israa'iil iyadu waxay leedahay afar qof oo kaliya ayaa dhibaatadan saan u baaxad weyn ku geeriyooday arrinkaas oo aqliga bini aadamka uusan qaadanayn laakiin waxay sheegayaan tirada dadka dhaawacmay in ay kuwaas oo waliba dhaawac culus markaasi qaba dhanka kale wakaaladda wararka Iiraan ee loo yaqaan Faris ayaa soo xiganaysa ila amni oo ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay sheegeen in habeenkii xalay gantaaladii ay ku garaaceen gudaha Tel Aviv ay ahaayeen gantaalada balaastikada ee lagu magacaabo Qasim Suleymani waxay sidaas oo kale ay sheegeen in gantaaladaasi ay markaasi madaxyadooda ay ku xirnaayeen qaraxyo aad u waaweyn runtii waxa muuqata Iiraan habeenkii xalay in ay soo go'aansatay Tel Aviv inay dhulka dhigaan waana tii maalinkii shalay wacd ay ku mareen arrinkaasna Israa'iil ay dhageelsanaysay runtii farsamadii ay habeenkii xalay ay adeegsadeen Iiraan waxa muuqata falanqeeyaha sare Faiz al-Duwayri wixii maalinkii shalay uu sheegay oo ahaa in diyaaradaha droniska marka kuwaad ay iska hormariyaan si markaasi qalabka difaaca cirka uu u wareero arrinkiina habeenkii xalay waa ay sameeyeen iyagoo boqolaal diyaaradaha droniska soo diray oo Israa'iil ay isdiyaarinayso markii qalabkooda difaacu ku mashquulay ka hortagga droniska ayaa hal mar waxa hoob bariiska la yiri 100 gantaal ayaa hal mar hoob bariiska la yiri dhanka kale dadka ooynaya ama dadka barooranaya ma ahan shacabka oo kaliya waxa kamid ah dadka hadda oohintooda ama warbaahinta la soo fadhiistay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak ayaa goor dhaweyd anigana ka soo xiganayo kanaalka Al Jazeera wuxuu yiri Israa'iil waxay guul weyn ay ka gaartay ayuu leeyahay Iiraan maalinkii Jimcaha ahayd oo rag badan ama saraakiishooda kamid ah ayay dishay laakiin hadda waxa horteena xanuun aad u daran ayaa horteena maadaama Iiraan ay naga argudatay sidaas kale wuxuu yiri Israa'iil kaligeeda saacadan la joogo ma awoodo in dagaalkan ay sii wado waxaan u baahanahay sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka run ahaantii arrinkan waa wax lala yaabo in mid kamid aha madaxdii hore Israa'iil Ehud Barak oo aan naqaano isagana falalkii uu sameyn jiray in maanta warbaahinta hortooda uu ku booyo wuxuu leeyahay
maalinkii shalay Iiraan dhibaato xoogan ayaynu gaarsinay guul weyn ayaynu gaarnay saraakiishii ugu sarsaraysay ayaynu dilnay laakiin daqiiqado kooban ama wax ka yar saacad ay weerar inagu soo qaadeen xanuun daran ayay ina dareensiiyeen waa Iiraan waa sida markaas isaga uu leeyahay sidaasi oo kalena yacni waxaad dareemaysaa in Israa'iil dabeecad ahaan aysan awood u lahayn ama aysan uga gasan karin muddo dheer in dagaalka ay sii gasho marka habeenkii xalay wixii ku dhacay oo kaliya ayuu ninkan sidii Netanyahu oo kale wuxuu leeyahay waxaynu u baahannahay sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad degdeg inaynu helno run ahaantii waxaa soo baxaysa arintii maalinkii shalay uu ka dhawaajiyay falanqeeyaha arrimaha militariga iyo istaraatiijiga Faiz al-Duwairi oo ahayd in yacni Israa'iil iyo Iiraan marka la isbarbar dhigo Iiraan ay kaga duwan tahay Israa'iil afartaas qodob oo yacni hadda muuqata midda koowaad dulqaadka istaraatiijiga يعني waxaan la soconnaa tan ilaa ay maalinkii jimcaha ahayd oo Israa'iil weerar ay ku qaaday dhanka Iiraan oo jug culus la gaarsiiyay Iiraan yani wax cabaad badan kama muuqdo ilaa ay hadda waxay wacd ku mareysay inay aargudan doonaan halka maalinkii habeenkii xalay ahaa weerarkii lagu soo qaaday Israa'iil ee Tehran ay ku soo qaaday Israa'iil dhulka dhan la gariirayo oo yani waxa muuqata marka dulqaadka arrimaha istaraatiijiga يعني labada dhinac marka la fiiriyo Iiraan ay ku wanaagsan tahay sidaasi oo kalena Faiz al-Duwairi qodobkiisa ugu dambeeyay maalinkii shalay uu sheegay waxay ahayd in awood qarsoon ay leedahay Iiraan oo leeyahay awooddaas haddii ay adeegsatana yani guul ayaa laga yaabaa inay ka gaarto dagaalkan run ahaantii saakay xaalad daran ayaa ka muuqata guud ahaanba Israa'iil cabsi daran shacabkooda ayaa waxay markaasi xataa laga cabsi qaba hadda la leeyahay warbaahinta Israa'iil hadda ay sheegayaan in kacdoon ay sameeyaan maadaama oo faarkii Netanyahu in albaabadii jahannamo uu u furo isagayna uu markaasi uu ka baxsado insha Allah wixii arimahan ka soo kordhana daqiiqadaha kadib si joogto ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa biidnillah ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 Dere Suits waa dhismo si casri ah loo dhisay Dere Suits waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto haddaba dadka iibsada ama kuwa kiraysanaya waxaa loogu talagalay adeegyo si lacag la'aan ay ku heli karaan sida cafe shop qolka shirarka meel caruurta ay kugu ciyaaraan oo ammaan ah mini theater qolka daabacaadaha qolka jimicsiga sauna ama xamaamka maqribiga CCTV camera ayaa guriga meel walba kaga xiran oo yaanan hilmaamin laba baarkin oo waasica ayuu leeyahay dhismahani haddaba Dere Suits waa another level apartment wuxuuna ku yaalaa wadada Jayga Airportka ama dhabarka dambe ee Turkish Maarif School Expol Technico wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya